dumar badan ayaa waxay isweydiinayaan isla markaana shaki badan uu kaga jiraa xubinta taranka ee dumarka in ay tahay xubin mudan in mar walba la nadiifiyo, waxyaabaha lagu nadiifinayo iyo siyaabaha loo nadiifinayo intaba. haddaba videogan waxaan kugula wadaagi doonaa siyaabaha loo nadiifiyo xubintaasi, waxyaabaha mudan in lagu nadiifiyo. marka hore intaynan u guda galin nadiifinta xubintaasi waxaanu ka hadli doonaa habka ay u sabaysan tahay xubintaasi. guud ahaan amaba badanka dumarku waxay aaminsan yihiin xubinta meesha la yiraahdo fajeenaha ama duleelka gabadha ay ka dhasho, caadadana ay kaga dhacdo, isla markaana looga galmoodo in ay tahay meesha ugu mudan ee la nadiifiyo. laakiin arintaasi waa arin qaldan, isla markaana keenayso dhibaatooyin fara badan haddii si qaldan loo nadiifiyo. sababta asaas u leeyahay waxay tahay godkaasi ama duleelkaasi yar gabadha waxay ku leedahay bacteria loo yaqaano bacteriyada wanaagsan, taasi oo ka caawinayso in ay balance gareyso amaba isla ekeysiiso pH-keeda. sidoo kalena waxay ka qayb qaadataa bacteriyadaasi inay la dagaalanto bacteriyada loo yaqaano cadowga. isla markaasi meeshaasi waa meesha kaliya ay iskeed isku nadiifiso. haddaba haddii aynu dhahnay fajeenaha ama duleelka yar ee gabadha ay ka dhasho caadada kaga dhacdo loogana tago uma baahno wax nadiifin ah, intee u baahan in la nadiifiyo? guud ahaan structure-ka xubinta taranka ee haweenka wuxuu ka kooban yahay furuuryaha waaweyn, furuuryaha yaryar, clitorka, iyo sidoo kale duleelka hoose meesha ay ka kaadiso. intaas ay isku kooban tahay. meelaha marka laga reebo qaybta yare ee gabadha caadada ka timaado amaba ay ka dhasho, inta kale waxaa loo baahan yahay in la nadiifiyo. sidee loo nadiifinayaa? marka hore dad badan waxay isweydiinayaan in meeshaasi aynan u baahneen wax saabuun ah ama wax nadiifin kalo gaar ah, kaliya ay u baahan tahay biyo. laakiin arintaasi waa arin qaldan. tusaale haddaynu soo qaadano, halkani waxaa ku jiro koob saliid ah. xubinta taranka ee haweenkana waxay leedahay wax loo yaqaano sebaceous gland oo soo saarto saliid. haddaba meeshaasi marka ay saliid badan lasoo saaro, saliidda weelkan ku jirto haddii aynu ku kor shubno biyo, labadoodii ma noqon doonaan labo isla falgalo oo waxay noqon doonaan laba kala baxsan. jirkaaga meel walba oo saliid gaartana ma awood uma lahan biyaha in ay ka dhaqdo. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay wax ka qayb qaadanayo in ay isla falgalaan saliidaas iyo biyahaasi, isla markaana ka qayb qaato in meeshaasi si nabad qab loo nadiifiyo. marka ayna kasoo tagno in loo baahan yahay saabuun ama wax isla falgelinayo saliidda meeshaasi soo saarto iyo biyaha, maxay tahay waxyaabaha aynu isticmaali karno? waxyaabaha aad isticmaalaysid ee ugu muhiimsan xubintaasi, maadaama ay tahay xubin daryeel gaar u baahan isla markaasna sensitive ah, waxaa mudan in aad ka fiirisid maadooyinka ee ka samaysan tahay, in aad ka hortagtid wax walba oo caraf ay ku jirto, wax walba oo maxaa la dhahaa ay ku jirto colorayn, iyo wax walba oo dry ka dhigayo meeshaas ama qalajinayo. waxaa u baahan tahay wax moisture ama waxyaabaha lagu dhaqo xubintaasi oo laakiin qoyaan siinayo. marka laga soo tago waxa lagu dhaqaayo, waxaa qasab ah inaad ka taxadartid in xubinta aad ku shubtid biyo. biyahaas waxaan ka hadlayaa qaybta kore waa kaga shubi kartaa, laakiin duleelka ee gabadha caadada kaga dhacdo hoose ma ahan in aad ku shubtid biyo. biyahaasi waxay ka qayb qaadanayaan in bacteriyada ay jirkaaga gudaha usii geliso, cuduro badanna ay kugu sii dhaliso. jaaniska cudurada aad ku qaadaysidna aad ayuu u sareyn doonaa haddii aad meeshaas biyo ku shubtid ama aad ku falaashtid oo kale. marka taas aad kasoo tagno ayadana, habka ama procedure-ka adeegsanayno in aan ku nadiifino meeshaasi waxay tahay kow waxa wanaagsan in aad gacantaada marka hore iska dhaqdid, gacantaadana aad u isticmaashid maadaama meeshaas ay tahay meel
maqaarkeedu uu jilicsan yahay. sidoo kale waxaa wanaagsan cidiyaha inaa iska jirtid oo gabdho badan ayagoo cidiyo dhaadheer leh ay meesha gacmahooda ku dhaqaan. taasina waxay keenaysaa in xataa marmarka qaar meesha ay dhaawac gaarsiiyaan gacmahooda cidiyaha hoostooda wasaqdi ka gasha ama bakteeriyadii ee meesha ay sii gaarsiiyaan. gacantaada marka aad isticmaalaysid in aad ka bilaawdid qaybta hore kiliitarka, qaybta kore markaa kasoo bilaawdid hoos u degtid nadiifisid. processka wuxuu ka bilaabanayaa hore ilaa waxaa gaarsiinaysaa back. hore markaa ka bilaabaysidna waxaa kora kasoo bilaabaysaa, waa wadaysaa, hoos u wadaysaa. duleelka saxarada iyo duleelka gabadha ee caadada kaga dhacda dhexdooda dhaqaysaa. waxa ugu dambeeyo aad dhaqi doontidna waxay noqon doontaa qaybta saxarada. intaas marka aad qaybta saxarada dhaqdid waa joojinaysaa oo qaybta hore kuma soo noqon doontid. taasina waxay ka qayb qaadanaysaa ayadana in aad yareysid jaaniska uu kugu dhici lahaa bakteeriyada. waxaa kaloo muhiim ah marka aad nadiifinaysid haddii aad awoodid inaad isticmaashid suuf ama mindiilka yar ee loogu talgalay ilmaha yaryar in lagu nadiifiyo, ama mindiilka qoyan, amaba haddaa helaysid shukumaan jilicsan oo yar. markaa shukumaankaas heshid ama mindiilkaas waxaa isticmaalaysaa maadadii loogu talgalay xubintaasi in lagu dhaqo in aad ku qoysid, kadibna aad samaysid ku tir bedelo mindiilka meesha aad wax kaga tiraysid, meel kale ku tir bedelo, meel kale ku tir bedelo, meel kale ku tir bedelo, meel kale ku tir, saas inaad ku dhamaysid oo yacni meesha ku tirsid isla meeshii haddana meel kale ha sii gaarsiinin. laakiin mar walba waxaa door bideena oo wanaagsan oo mar walba aadan ka caajisaynin waa gacmahaagana inay noqdaan gacmo cidiyaha aad ka gurtay oo nadiif ah. sunnada ayayna ka mid tahay cidiyahaaga isbuuc walba in aad jartid. qodobkaas marka aan kasoo tagno oo meeshii aad sidaas ku nadiifisid, waxaa muhiim ah ayadana oo dad badan aysan ku baraarugsanayn in nadiifinta xubintaasi ay tahay oo kaliya in meeshaasi la dhaqo, la nadiifiyo, waxyaabo kale lagu dhaqo. laakiin waxaa kaga sii muhiimsan oo noo sii dhiman in aad cuntid cunto dheelitiran. sidoo kale waxyaabaha aad hoosta ka xiratid kastuumooyinkaaga inay noqdaan kastuumooyin suuf ah. googarad keligeedna aadan xiranin. googarada waxay ka samaysan tahay dharka laylonka loo yaqaano amaba laylonka dadaadanayo oo kale. dharkaasna ma haboono in xubintaasi aad u adeegsatid. sidoo kale kastuumada isticmaalaysid in ay noqoto 24 hours oo macnaha maantay biri dambo isbuuc aadan xirnaanin. sababtoo ah meeshaasi waa meel gudaha ku taalo, isla markaasna laga soo deynayo waxyaabo saliid leh, isla markaana huursan. taasina marka waxaa isla markaana qoyaan xitaa sii leh. kastuumadaada inay noqoto one day inaad isticmaashid, wixii ka badan aadan adeegsanin. waxaa sidoo kale gabdho badan ay isweydiinayaan marka aan caadada qabo ama cyclekayga uu joogo meeshaasi ma loo baahan yahay in la nadiifiyo? haa, waa loo baahan yahay in la nadiifiyo, waana waqtiga ugu mudan ee gabadha u baahan tahay inay nadiifiso. isla sidii hadda aan soo sheegnay ayay ayadana adeegsanaysaa. sidoo kale gabadha hadday umusho ay dhasho saasoo kale ayadana adeegsanaysaa. waxyaabaha ugu fiican ee loo adeegsado xubintaasi qaybta hoose waa waxyaabaha neeto inta aan kusoo qaadanay. productyada ugu wanaagsan ee loo isticmaalo xubinta in lagu nadiifiyo waa kuwaasa. ugu dambeyn dumar badan ay waxay aaminsan yihiin xubintaasi in ay tahay xubinta u baahan in si fiican loo daryeelo gabadha markay guursato. laakiin arrinkaasi waa arrin qalad ah. gabadha marka ay yar tahay in ay soo bilaado ayaa loo baahan yahay. hooyadana ay u sharaxdo sida meeshaasi loo nadiifiyo ilaa iyo gabadha laga guursanayo. intaasina waxay ka mid tahay arrimaha ugu muhiimsan ee routiinka ama maalinlaha loo sameeyo. waxaa rajeynayaa wax walba oo kuu keenayo ama kuu horseedayo cudur inaad marka hore ka taxadartid. videogan waxaan kugu wadaagay sida loo nadiifiyo, waxyaabaha ugu muhiimsan, qaabka loo adeegsado iyo meelaha mudanba in la nadiifiyo. waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.